baan haysanaa wax nooga qabtaan aad baa ma asan tahay walaal magacaaga adoo ku bilaabay ayaan aadan warsamaaleedaa hargeysaan ka yime caafimaad baan u socdaa marka dad bay caawinayay oo dhakhtar halka ay dhahay Itoobiya mo haddana carruurteedii yar waan ka soo tagay guriga 2 bilood iyo wax baan joogaa wax lay qabtayna ma jirto qof aan aqaanana ma laha hudheel baan ku jiro hudheelka markii dambena waxay dhaheen lacagdaana bixin lacagta qarashiga dhamaatay 700 baan weytay 700 banaanka u bax reer islaameed baan hadda seexdaan garan marka ayaan adiga markii hore waxa u timi fiisa inaad caafimaad ahaan waadid Itoobiya boroseeskii nidaamka lagu talagalay ma madhe wax kasta waan maalaanta socodka wax ay dhiman ma jirtaan ku wali inaan baan la hadlay inankii waxaan ku walaal waraaqdeedii meed maalin kasta wuxuu dhadaa way taala safaaraday taala waxay taalana ma arkin carruurteedii mid yar baa leeyahay adiga oo ka soo tagay ciyaal yar baan ka soo sax jira way gubataa la yirina baa gubtaa la yiri hadda waxaan ku hayaa waxa ay sadaan gaari hata nool helayna dub iskaga noqdo oo hadda waa ka rajo dhigtay inaad fiisa ka hesho Itoobiya wali wax maalin baa la qabnay geedkan subax kasta reerkan ka soo kala noo quraacan oo ana qadin maalin kasta waan imaada hadda dadkii iga dambeeyay bisha afraad imaadeen way heleen waxay ku heleen sababtaan ma garanayo markaan qofka ma garanayo meesha ii joogana ma garanayo guri islaameed markaan u dhaalka 700 iga dhamaatay waxa la guri lacag hadaan dhiibay iska bax reer islaameed ba marka hadda aan la noolahay ay xareeyeen ana wadada iska ooynay marka wax ay faa'iido hadda ii yeelan wayna iska noqday dantii ugu kalifaysa marka wax shuruud ay kugu xireen oo aad fulin weyday miyaa jira ma yaan waxa leegu xidhay ma jirto maalin kasta ballanta waxay leeyihiin waraaqaad waan gudbin inta hadal kama hayo wax intaas baa hadal qura ka hayaan marka hadda dawladda Puntland maxaa u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa dad walaalaheen inay na caawiyaan ay saas nooga eerkaan Itoobiyaanka haddaan wadankooda tagna hana gubaystaan wadan Soomaaliyeed baan joognaa marka haddii dad waxa jira lacag iyo wax la sheegaan lacagna ma arkin wax la weydiiyay marka haddii taa lacag ay dhahaan lacag aan bixinaa ma joogo Puntland baan joogaa dad muslim baan joogaa ma garanaysaa marka guriga waan haystaa haddaan waayo waan iska noqonayaa aniga carruurteeda ay baahan